maxkamadda sare ee ciidamada booliska ayaa ku amartay inay xilliga ay fulinayaan bandowga habeenkii haysan shacabka wax dhibaato ah u geysanin. Arrintani ayaa timid kadib markii dacwadu maxkamadda ka geeyay ururka qareennada waddanka loo soo gaabiyay LSK. Garsoore William Korori oo ka howlgala maxkamadda sare ee dalka ayaa go'aankani soo saaray waxa uuna xaakinka banduulaha booliska ee Master Hilary Mutambai u qabtay muddo 48 saacadood ah oo uu wargeysyada ku soo daabacayo habraaca booliska laga doonayo in ay adeegsadaan marka ay ku guda jiraan howlgalka ku aadan bandowga. Waxa uu sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in tilmaamaha maxkamadda loo soo bandhigo. Sidoo kale saraakiisha ammaanka ayaa laga hor istaagay in ay awood xad dhaaf ah u isticmaalaan oo aynan warbaahinada faragelin ku samaynin. 12 duhurnimo ee maanta ayaa LSK laga sugayaa inay maxkamadda geyso dukumiintiyada la xiriira dacwadda ay qaabka online-ka ku gudbisay. Banduulaha booliska Master Hilary Mutambai, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Dr. Fred Mutiang'i, xiriiryaha dalka Master Paul Kiara iyo wasiirka caafimaadka Mutahi Kagwe ayaa la doonayaa in ay kiiskan ka jawaabaan. Ururka garyaqaanada dalka ee loo soo gaabiyay LSK ayaa maxkamadda tagay isagoo doonaya in la hakiyo bandowga jira inta u dhaxaysa 7 fiidnimo ilaa 5 ururnimo.